Waa maxay cilmi afeed? Waxyaabaha aan rajaynayo inaan halkan isku dhaafsano waxay ahaan doonaan hadduu Alle idmo. Sida horeyba laydinku soo wargeliyey inaan isdhaafsano macluumaad guud oo ku saabsan farta iyo naxwaha af Soomaaliga. Hase yeeshee, qofka doonaya inuu sameeyo cilmi baaris afeed wuxuu u baahan yahay inuu daalacdo qoraalada faraha badan ee laga qoray naxwaha af Soomaaliga laga soo bilaabo 1849 ilaa maanta, oo ku qoran af Ingiriiska, af Talyaaniga, af Jarmalka iyo af Faransiiska. Laakiin fahamka qoraaladaas badankood way ku adkaanayaan qofka hadduusan wax ka aqoon culumta adeegsiga cilmi afeedka. Cilmi afeedku waa aqoon cilmi baariseed oo ballaaran, taasi oo ka kooban maadooyin fara badan sida cilmiga codadka ama codaynta, sarfaha, dhismaha, weerta, micnaha, erayada, taariikhda afka iyo wixii la mid ah. Waa duruus ka mid ah kuwa laga barto jaamacadaha, gaar ahaan kulliyadaha afafka. Haddii aan si kale oo fudud u niraahno afka lagu hadlo, waxaan ku matali karnaa baabuur ama gaari. Qofka ku hadlana waa shufeerka baabuurka. Cilmi afeedyahankuna waa makaanikaha baabuurka, kaasoo gabal u yaqaana wax kasta oo uu ka kooban yahay baabuurka iyo waxtarkooda. Haddaba, haddaadan makaanika ahayn, noqo shufeer daryeela baabuurkiisa. Fiiro gaar ah, labada erey baabuur iyo gaari waa erayo asalkoodii hore kasoo kala jeeda af Faransiiska iyo af Hindiga. Sidaasi oo ay tahay, labadoodu waxay maanta ka mid yihiin erayada qaamuuska Soomaaliyeed. Waxaa qoray Professor Cabdalla Mansuur. Somali Profile ayaad kala socoteen. Haddii aad muuqaalkan ka heshay iyo warbixintaba aad la dhacday, fadlan subscribe saar si aan ugu dhiirano una soo gelino taariikho ka hadlaya waddanka.